waxaan maanta la hadlayaa xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi. in badanna waan la hadlay, waxaanan ugu celcelinayaa wadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniin. ilaahay baa yidhi xusuusi, waayo waanada waxay anfacdaa dadka mu'miniinta. madaxweyne, dalkii waa kala irdhoobay. dalka waxaad qabatay iyadoo dalku isku xidhan yahay oo dadku ay midaysan yihiin bari ilaa galbeed. mar walba wax waa jireen, laakiin waxa weeye dal midaysan baa lagu dhiibay. maanta khilaaf adiga kaa bilaabmay oo adiga kugu dhammaanaya ayaa dalkii haysta. arrintaasaanu kaala hadlayna. hogaamiyuhu waa kee? almu'minu alifun ma'luufun walaa khayra fii man laa ya'lifu walaa yu'laf. hogaamiyuhu waa ka dadka ururiya ee lagu ururo buu yihi rasuulku calayhi salaatu wassalaam. kaasaa hogaamiye ah. madaxweyne, waxaa lagu leeyahay aanu kaa codsanaynaa, aanu ku xusuusinaynaa sidii dalka laguugu dhiibay inaad ku hayso oo aad dadkii isku ururiso. khilaaf siyaasiyaa jira, khilaaf ka dhashay deegaanadii oo mustanaca muftacala. culammadu waxay yidhaahdaan waxaasi waa wax la sameeyey oo cid dan lahi samaysay, oo runtii loo tirinayo shaqooyinka ay yaqaaneen dadka qaarkood, oo adiga laftigaaga lagugu tuhmayo khilaafaadka qaarkood inaad adigu madaxweyne abuurayso. waxaanu madaxweyne kaala talinaynaa dhaqaalaha dalkan. waad og tahay shaqaalaha aa haysaan xukuumaddu haysataa 40,000 kama badna. somalilan 4.5 milyan baa ku nool. yaa haya dadka inta kale madaxweyne? waxaa haya ganacsatadii. waxaanu kaala hadlaynaa dhaqaalaha. islaamku waxyaaluhu u yimid waxaa ka mida in dhaqaalaha la ilaaliyo, in dhaqaalaha la kobciyo, in faqriga lala dagaalamo. ilaa xad ilaahay gaadhsiiyey qur'aanka gudihiisa, faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa ihma calayhi. qofku hadduu gaajoodo xataa meydka ha cuno baa la yidhi. hadday dadku baahdaan waxay keeni doontaa infilaat amni, in dalka nabadgelyadiisu meel xun ay gaadho. maxaad uga jeedaa madaxweyne inaad dhaqaalihii xidhxidho? maxaad uga jeedaa madaxweyne cashuur aan jirin oo 4 laaba inaad dadkii ku kalifto? maxaad uga jeedaa madaxweyne inaad dadkii 100,000 kun ee shaqaalaha hayay aada curyaamiso iyadoo sistamkaagu uu sidaa u shaqaynayo? caqlan wa sharcan laa yuqbalu minhu. waxaanu ku leenahay madaxweyne, dhaqaalaha furfur. xukuumaddii kaa horreysay waxay ahaayeen dad goba. maxaanu kelmaddaa u leenay? waa lala hadli jiray, waddo loo maray lahaayeen marka arrin u yimaado. adiga ayaa wax kuu sheegaya dariiqeese laguu soo maraya madaxweyne. dalkii oo dhan wuu soo ootay. kumaankum meheradood ayaa kacay. yaa shaqo u samaynaya? shaqo waxaa ka barateen cashuur, inaan juwan la cararaya oo macaash ka shakeynaya meheradihii oo wada kacay. arrinta dhaqaalaha madaxweyne wax ka qabo. inta aan guryaha la iskugu soo gelin wax ka qabaanu ku leenahay madaxweyne. waxaan ku soo ururinayaa anigoo aan badinayn, doorashadu in la qabtaa waa lagama maarmaan. waayo waxaynugu dooranay in ninkii damac leh aanu dariiq kala soo marin. laakiin wixii doorashada suurto gelinayey iyo in dadka la qanciyo oo dadka la isu ururiyo oo aan khilaaf la abuurin keenaya extension, sida dadka u ila bixiyo siyaasaddu ay leeyihiin, oo laisleeyahay xukuumaddu daraf ay ka mid ka tahay.